Waxaa la yaabanahay dadka soo qoreen kumatigan. Maxay u soo qoreen xaasinima mise way iska soo qoreen mise waxay rabaan aniga inay igu xumeeyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channel-keena S21 oo laga soo gaabiyo Soomaali Tijaabo 21. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay kumati runtii aad iyo aad iga xanaajiyay. Weligeena kumati sinan camal ma iga xanaajinin. Kumatigaas muuqaal ayaan ugu hadlayay. Kumatigan waan arkay, maalinta arkay waa ka xanaaqay, dib dambe ma soo fiirinin. Hadda maanta ayaan jeclaystay inaan kumatigan jawaabtiisa siiyo. Kumatiga Maxamed wuxuu soo qoriyay abaayo hore u soco. Maasha Allah ayuu soo qoriyay. Marka walaal aniga hal naseexo ayaan ku sii lahay qofka adigoo hubsanin wuxuu uu yahay ha iska soo dhihin, ha iska soo qorin waxa rabtid. Mise codkayga ayaa nagu eg. Ha iska soo qorin waxa rabtid. Wax hubso markaa hubsatid soo qor. Dad waxaa jiraan hadee wax hubsanin iska soo qorayaan. Wax soo hubso kadib ii soo qor. Runtii aad iyo aad iga xanaajiyay kumatigan weligeena kama xanaaqin. Marka qofka haddii uu hadalka qalad u fahmi karaa. Aniga hadalka qalad loo fahmayo qofkaas waa sixi karaa ma ka xumi. Laakiin waxaa ka xumahay kumati la iska soo qoray Allah fiirsanin kumatigan ninka waxaa nimiya ama naag. Jawaabta saxda ah hadda ku siinaya dhageyso. Aniga miihi gabar waxaan ahay wiil. Hadal sax ma aniga miihi gabar waxaan ahay wiil. Mar dambana adiga oo wax hubsanin ha iska soo qorin kumatiga waa nasteexo. Hadaa nasteexa diidayni kumatiga dambada ku arko blogga ka saara waa war cad. Meeshas ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi